الرعيم أنا أقول الله مجا أرياش دقة كدلوين يمتك بيرلي وعن هل كانوا قاعدين يا دبعتي مسيبة إن شاء الله يريد العلم عمسو سيبا قيب تجلوين ضد مساكين أو بيرلي ضد بشرية أي أنت الدلين أي مينا كحرم مينا كعيان فالكاس ما أنت كون معها بيري ورنا فالكانوا كانوا ويسميين عمسون وحي عادي ستي إلى ضدك الشعب كالليدو مركزته وعادة برتي dadka Soomaaliya leedo dawladda federaalka maamul goboleedka koonfur galbeed taliyaha ciidamada xoogga dalka intaba waxaan u sheegaynaa dhibaatada lagu hay dadka Soomaalida ah inay wax ka qabtaan ay dadkii layso waxaan adduunka ka codsanaynaa qaramada ka codsanaynaa hay'adda hawshan ka codsanaynaa United Nations ka codsanaynaa midowga Afrika nabadgelyada ka codsanaynaa inay soo dhaxgalaan arrimaha ka dhacay galweyn waxa la arkay ama hawshan ama dad way isdilaan laakiin inta la dilay hadana meel lagu xiray wax noo dhimanayad waxaan codsanaynaa adduunku inuu soo farageliyo dawladdiina soo farageliyo ra'iisul wasaaraha soo farageliyo madaxweynuhu soo farageliyo abnigu soo farageliyo cid kasta gobolka shabeellada gobolka koonfur galbeed si degdeg ah inuu soo farageliyo si degmada marka inuu soo farageliyo codkanaga in la dhageysto ayaa caalamka codsanaynaa hawshanka United Nationalka amisonta nimanka xukuma oo mandateeka maalinka siiya waxaan ka codsanaynaa arinta deegaanka ka dhacday wax hore loo arkay maahan wax la maqlay maahan inayna soo gaaraan codsana malaan waxaan go'aan ku gaarnay annagoo shacbiga Soomaaliyeed ah ina haddii xariyahan haddii deegaankan ay soo dhagalaan ama hadda baadama noo geystaan inaan ku jahaadno oo nafta ku reebno ilaa beertii noo diideen guriyaan ku nabadgeli weyne gaadiidkan ku nabadgeli weyne wadayaan ku nabadgeli weyne waxaan codsanaynaa caalamku inuu soo farageliyo midowga Afrika soo farageliyo United Nations soo farageliyo amaankana soo dawladda soo farageliyo ra'iisul wasaaraha soo farageliyo intaas ayaan codsanaynaa ummad Soomaaliyeed waaye si oo naxariis daraan loo rasuuqay walxaysan weligeer aragaa lagu falay ambaysan maqal dad in la dilo xabad lagu dilo guryahoora laga wato xabad lagu dilo ka bacdi qarax in la jiido ka bacdi qarax la korgeeyo ee la qarxiyo ee hilboori farxadeen mid noo dhiman waa maanta noo koobataas waxaan marka u sheegaynaa caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhigga wasiirka maxaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenta waxaan u sheegaynaa nimanka halka jooga annagu ma dhahayno Amazon waxa lagu yaqaanaa nabad ilaaliyaal baa lagu yaqaan nabad ilaaliyaal maaha nimankaanu wixii loo idmaday iyo wixii loo keenay waa baalmare arrinkaana wax maanta ay bilaabeen maahan waa waxay mataqaana horay ay u sameeyeen u caadaysteen aan lagala hadlin aan lagala xisaabtamin aan wax laga weydiin marka waxa la yiri libaaxu hadduu wax u barto haddii maalinka dambe waa laga dhigaa la yiraahdo laga ma dhigi karo horta Soomaalidu waxay tiraahdaa habartii xal u ogaayay tiraahdaa inda laan طبعا ما يقدر يصير أما سامي دبدي أنا وأكون نقينا ذاتك وادري جرتي هذه وحمل كرع أو كرع ذاتك إيه دسوال ويقين لكن ولا حنا قانين أو وين أي كان إن ذاتك أنت سواء روريان قرع كف الإنسان يكون قرعيان كان واو حنا وعصب الدنيا لك وعصب وحنا الله أركما وحياب لوا مركا Soomaaliya marka waxaan u sheegaynaa Soomaaliha isku tashato Amazon iyo Uganda waxay u hayaan malahan waxay ugu maqan yihiin malaha waxaan dhibahayna ugu maqna waxaan aad uga xunnahay wixii shalay ka dhacay meesha la yiraahdo Faarax oo lagu dilay dadkaas beeralayda ah oo ganacsatada ah oo yaani ma taqaanaa ah dadkii ummadda u haayay nolosha ay maanta ku tiirsan yihiin dadka Soomaaliyeed aadan uga xunnahay dadaan yaani ma taqaanaa aan mudnaan in la dilay ahaayeen wax aan hal ka nahay maahan waxaan rabaa odayaasha ganacsatada ragga ehelka qaraabada dadka meesha fadhiya waxaan ka gudoomay wakiilashada ay ii wakiisheen inaan gaarsiiyo dawladda Soomaaliya cabashadooda iyo Amazon oo aan u sheego Amazon inay dadkii yaani ma taqaanaa ay dhibaatadii gaartay dad darteed ay maanta taagan yihiin inay yiraahdeen
ma ahan amisom ciidankii aan ku naqayne waxaan kala noqonay kalsoonida waxaan leeyahay arrintaas waxaan gaarsiinaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda iga sarreysa si aan u gaarto shucuurta dadka deegaanka sababtoo dadkan waa dadkoodii ayaga yacni ma taqaana ciidan u ah waxaan rajaynaa oo aan isleeyahay waqtiyada soo socda waxaa loo baahan yahay ciidan Soomaaliyeed in la helo oo ku filan dadkan amaankooda inay sugaan wayna ku filan yihiin ciidanka Soomaaliyeed waxaa sabab u ah inay iska badan yihiin aaga guyo maanta ay aaga kala jiraan waxaan gaarsiinaa fariintiina waxaan rajayaa inay ka soo jawaabi doonaan madaxda dawladda madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka soo jawaabi doonaan qodobkaas waxaan gaarsiinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed nimankan inta joogo oo hadda amisom ayagana waxaan gaarsiinaa wixii yacni ma taqaanaa cabashaha oo aad ii dhiibteen aan gaarsiinaa waana laga rabaa dadkii nabadda ay loo soo dirayo nabad ilaalin ahaan loogu soo diro waaye inay iyaguna jawaab ka bixiyaan wixii ay sameeyeen falkii ay sameeyeen inay jawaab ka bixiyaan ayagana waa laga sugaa haddii yacni ma taqaanaa ay ka bixiyaan jawaab ku habboon oo dhacdadii meeshaas ka dhacday ay jawaab ku habboon ka bixiyaan waa kaasa haddii ka bixi waayaan oo ay dhacdo inay sida hadda ay wax u aamusan yihiin ay u aamusnaadaan hadda wixii dawladda Soomaaliya iyo madaxda ay ii soo dhiibaan ayagana idin kula soo noqon doona haddii Ilaahay aad iyo aad aan u mahadsantihiin